maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc aan isleeyahay wax badan aad ka faa'iidi doontaa insha Allah. Mowduucan waa sida wajiga iyo maqaarka looga ilaaliyo qaleylka. Haddii aad rabto marka wajigaaga inuu noqdo mid liisha, maqaarkaaga noqdo mid liisha, qaleyl mid aan lahayn, waxaad u baahan tahay talooyinka aan hadda kula wadaagi doono insha Allah. Mid walba inaad sideeda u samayso. Talooyinkan meelo badan oo kala duwan ayay xooga saarayaan. Marka waxaa ugu muhiimsan 8 ilaa iyo 7 ilaa 10 koob oo biyo ah. macnaha haddii aad rabto in maqaarkaagu uusan noqon mid qalalan, haddii aad rabto in wajigaagu uu noqdo mid liisha ah, waxaa muhiim ah in aad biyo badan cabto. macnaha ha sugin adigoo biyo badan aan cabaynin in maqaarkaagu liisho noqdo, adigoo biyo badan cabaynin in wajigaagu uu noqdo mid dhalaalaya. ha sugin. macnaha markastoo biyo badan aad cabto, markastoo maqaarkaagu uu noqdo mid aan qalalnayn, markastoo aad biyo badan cabto, markasta oo wajigaagu uu noqdo mid dhalaalaya oo ifaya. macnaha biyo aad cabto ayay ku xiran tahay sida maqaarkaaga iyo wajigaagu ay u noqdaan kuwa ifaya. marka 7 ilaa iyo 8 galaas oo biyo ah ayaa fiican in aad maalintii cabto. marka see u cabaysaa? waa qaab fududan kuu sheegaa. marka waxaa u cabaysaa macnaha waxaa sameynaya biyaha markaad cabayso 5 salaada la dugtaa oo faradka ah. salaada subax 2 galaas cabaysaa. markaad dukataba 2 galaas oo biyo ah. 4 saac oo kale 1 galaas, meesha 3 ku cabtay. duhurkii galaas cab, 4 galaas cabtay. casirkii galaas cab, 5 galaas cabtay. maqribkii galaas cab, 6 galaas cabtay. markaad sii seexanaysana 1 galaas inaad cabto ayaa sii fiican. marka qaabkaas ayaad biyaha u cabaysaa. qodobka labaad ugu muhiimsan waxaa waaye waxyaabaha kareemyo waxaa jiro oo la yiraahdo maqaarka qaleylka ay ka baabi'iyaan. kareemyadaas marka aad gadanayso marka waxaa u baahan tahay 3 maado inaad ka fiiriso. maado la yiraahdo hyaluronic acid, maado la yiraahdo glycerin, iyo maado la yiraahdo ceramides. 3dan maado haddii kareemka aad gadanayso ay ku jiraan waa muhiim, sababtoo maqaarka waxay ka dhigaan mid mar walba qoyan, waxayna ka ilaaliyaan qaleylka. marka kareemba haddii aad gadanayso waxaad u baahan tahay in aad 3dan maado aad ka fiiriso. haddii lagu dhaho kareemka maqaarka qaleylka iyo waxyaabahaas u fiican yahay, qofka kaa gadaya wuu ku dhihi karaa moogta ilaan badeecada asaga u taalaa, laakiin adiga aqoonteeda inaad leedahay fiican. 3dan maado ayaad ka fiirinaysaa. qodobka saddexaad waxa uu leeyahay saabuunada. inta badan dadka saabuunada way iska gataan, maadooyin ay ka fiiriyaanna ma jirto. marka saabuunta aad gadanayso ha gadan saabuun ay ku qoran tahay ama ay ku jirto maadadan sulfates. maadada haddii aad saabuunta ku aragto qoraalkeeda marka akhriso ha gadanin, sababtoo ah sulfates waxay maqaarka ka saartaa saliidaha dabiiciga ah. waxaa loogu talagalay macnaha dadka maqaarkooda mar walba iska qoyan yahay, dhididka badan, dadkaasaa loogu talagalay. marka sulfates ha gadanin. haddii maqaarkaagu qaleyl yahay ha gadanin maadadan saabuun ay ku jirto. waxaa marka gadanaysaa 2dan maado. haddii aad rabto in saabuun aad gadato, saabuuntaasna maqaarkaaga ay ka dhigto mid jilcan, mid aan qalalnayn, wajigaaga ay ka dhigto liisho. haddii aad rabto waa inaad gadato saabuuno ay ku jiraan aloe vera maadada la dhahdo ama shea butter. 2dan maado aloe vera iyo shea butter waa 2 maado oo dabiici ah oo muhiim u ah maqaarka, waxayna ka ilaaliyaan qaleylka. wajiga waxay ka dhigaan liisho, waxaana labadooda la isku dhahaa gentle cleanser. saabuunada ama waxyaabaha jilciya maqaarka ayaa la yiraahdaa, waxyaabaha jilciya maqaarka. qodobka kale ee aan rabo inaan ayadana aan ku faa'iideeyo waxay tahay badeecadaha la isku qurxiyo ama maqaarka waxyaabaha lagu qurxiyo. inta badan haddii aad aragto saabuun, shaambo ama waxyaaba lamid ah oo aad u carfaya ha gadanin. macnaha waxba ay ka caraf badan yihiin, way ka aashito iyo alcohol badan yihiin. marka haddii aad rabto maqaarkaaga in aad rabto inuu liisho noqdo, waa in aadan gadan skin care productska inta badan caraftooda zaa'idka tahay gadanin. carafta waa loo baahan yahay, laakiin kuwa zaa'idka ah gadanin, sababtoo ah kuwa zaa'idka waxaa ku jira alcoholkaas waxay keenaysaa in maqaarkaagu noqdo mid qaleyl ah.
maadooyinkan inaad ka fogaato aaday ku anfacaysaa. Waxyaabaha marka carafta badan ee alcohol ku jirta, alcoholkaas marka qallayl iyo cuncun iyo waxyaabahaas ay keenaysaa. Marka midka uu ka caraf badan yahay waa uu ka saameyn badan yahay xagga waa uuna ka liitaa. Qodobka kale aan rabo inaan ayadana ku ifiyo waxay tahay nooca saliidaha aad isticmaalayso. Saliidda inta badan aad isticmaalayso waa saddex saliid midkood waa inay noqoto coconut oil, saliidda qumbaha, olive oil, saliidda zaytuunka, iyo almond oil, saliidda laga sameeyo lowska. Saddexdan saliid waxay maqaarka ka ilaaliyaan inuu yeesho qallayl. Sidoo kale wejiga waxay ka dhigaan liishe. Faa'iidooyin badan ayay marka maqaarkana u leeyihiin saddexdanba. Waxaa kaloo muhiim ah in aad cuntooyinka aad iska saxdo laftigooda, sababtoo ah cuntada marka aad saxdo maqaarkaagu liisho ayuu noqonayaa. Haddii marka product kasto ama wax kastoo fiican, saabuun kasta haddaa gadato, laakiin cuntooyinkii maqaarka muhiimka u ah aadan cunaynin, waxba kuuma kordhayaan. Marka waxaa fiican cuntada aad cunayso iyada laftigeeda maxaa ku dooranaysaa, because cunto kasta la iskama cuno. Cuntooyin waxaa jira maqaarka muhiim u ah. Cuntada aad cunayso waa inay tahay cunto ay ku jirto maadadan omega 3 fatty acid. Cuntooyinka laga helo marka omega 3 fatty acid waxay maqaarka ka dhigaan liishe, waxay ka ilaaliyaan qaleylka, cuncunka, waa ay ka daaweynayaan waxyaabahaas oo dhan. Marka waxaa kamid ah lowska ayaa kamid ah. Lowska waa mid kamid ah cuntooyinka laga helo omega 3 fatty acid. Maadadan maqaarka muhiim ayuu u yahay. Sidoo kale kalluunka ayaa kamid ah. Kalluunka maadadan waa laga helaa, isagana maqaarka muhiim ayuu u yahay. Waxaa kaloo soo saddexeeya avocado. Avocado waa mid kamid ah waxyaabaha maqaarka muhiimka u ah. Marka laga hadlayo dadka maqaarkooda ay qaleylka yahay, dadka doonaya in maqaarkaagu dhalaalo, haddii aad doonayso wejigaaga inuu liisho noqdo, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho avocado ama lows. Omega 3 fatty acid ayaana labadan maado ku jirta. Waxaa kaloo fiican inta badan dadka waxyaabo aysan ogeyn waxaa kamid ah qubeyska. Inta badan Soomaaliya hadda biyo caadi ah la isaga qabaystaa oo biyahooda maba kulula, laakiin waxaa jira dad biyo diiran mar walba isaga qabayso. Haddii marka biyo diiran aad ku qabaysato, totally waa inaad joojiso. Biyaha aad ku qabaysanayso ha noqdaan biyo caadi ah ama ha noqdaan biyo qabow. Sababtoo ah biyaha diiran waxay daldaloolada ayay xiraan, ama maqaarka ayay xiraan. Marka daldaloolada maqaarka ay xirmaanna waxaa kugu badanaya maqaarkii qaleylka ku badanaya, sababtoo ah saliidii maqaarka ayaa yaraanayso. Marka biyo haddii aad ku qabaysanayso, biyahaas waxaa fiican inay noqdaan biyo qabow ama biyo diiran inay noqdaan. Waxyaabaha maqaarka muhiimka u ah dadkuna aysan weli ku baraarugin waxaa kamid ah hurdada. Macnaha dhafarkaagu markaas uu badan yahay, macdantii muhiimka u ahayd maqaarka ayaa yaraanaysa. Marka waxaad u baahan tahay in aad 7 saac ugu yaraan ilaa 8 saac 9 saac oo xiriir ah inaad habeenkii hurdo. 7 saac waa meesha ugu yar. Marka hurdo kugu filan inaad hesho waxay muhiim u tahay maqaarkaaga. Dadka inta badan hurdada ku filan hela xataa muuqaal ahaan daadooda way ka yaryihiin. Marka hurdadu waa qaybta ugu muhiimsan marka laga hadlayo in maqaarkaaga uu noqdo liishe, in aad daadaada u noqoto mid qof daadiisa ka yar. Waxyaabahaas oo dhan marka hurdada laga hadlayo waa waxa ugu muhiimsan. Sidoo kale yaanan kaa iloobin marka aad maqaarka aan ka hadlayno omega 3 fatty acid, malabka ayaa kamid ah. Malabka waxyaabaha muhiimka u ah ayuu kamid yahay marka laga hadlayo omega 3 fatty acid waxyaabaha laga helo. Qodobka ugu dambeeya waxaan kaga hadlaynaa maadooyin muhiim ah oo cuntooyinka sidoo kale laga helo. Cuntooyinka aad isticmaalayso, maadooyinkan haddii ay ku jiraan isticmaal vitamin E, vitamin C iyo zinc. Saddexdan maado maqaarka muhiim ayay u yihiin. Sidoo kale saddexdan maado waxaa laga helaa lowska. saddexdoodaba lowska laga helaa. Marka lowska, malabka iyo avocado waa 3 maado oo muhiim u ah maqaarka. Omega 3 fatty acid, zinc, vitamin C, vitamin E intaba waa laga helaa. Marka saddexdaas waa inaad daainto haddii aad doonayso in maqaarkaagu liisho noqdo.
waxaan rajaynayaa inaad mawduucan wax badan ka faa'iiday. Like saar muuqaalka si saaxiibo badan uga gaaro ugana faa'iidaystaan.